بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شرفت لقيمها بدن ميل كستا أدوك أكجوكتين وحان إلهي إذا كجبر يايا دم بداف ربضن بشبر كيسن إيه رمضان فضل جيدة. نمبر 1 إلهي إنو نقدركو ونار تكحريي. Number 2 inuu ilaahay dembi dhaaf una siiyo. Number 3 inuu ilaahay jannadiisii firdowsi aclaa uu ilaahay nagu kulmiyo naxariistiisa. Ilaahay inta dhimatay allah u naxariista eenan ramadaankan nasiibka u yeelanin inay soo gaaraan. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu sadaqadeeni, soonkeeni, salaadeeni, cibaadadeeni intaba inuu ilaahay naga aqbalo. ilaahay gafkeeni geerideena ma kulmiyo. maalinteena maalin khayr qabta allah ka dhigo. ilaahay waxaan ka baryaynaa inta xanuunsan allah noo caafiyo, inta dhimatay allah u naxariisto, inta muraad kale ee danta leh dantooda ilaahay oo khayr qabo oo khayr u ah allah waafajiyo, inta murugaysan ilaahay murugta farxad ha ugu bedelo. inta dhibaatada iyo abaaraha iyo ku jirto ilaahay inuu inta colaada ku jirto inuu ilaahay nabad ugu bedelo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inta abaaraha ku jirto ee dhulkeena hooye dhibaatada ka jirto ilaahay inuu barwaaqo ugu bedelo. inta daadadka iyo roobka iyo nimcadii ilaahay ku waxyeeloobayna ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu naxariistiisii ugu bedelo barwaaqo iyo khayr. annagaana lagu imtixaamayaa masaakiintaas waxba ma galabsanin. intaas kadib waxaan rabaa inaan idinla wadaago farxadda iyo bisha barakeysan ee ramadaan. waxaa jiro xanuuno fara badan oo imtixaan ku noqday adduunka. waa la is imtixaamayaa. adoomada ilaahay ma kala jecla, laakiin waa imtixaan xanuun fara badan oo musiibo ah oo virus ah oo dadkii kala reebaynin, oon dadkii kala garanaynin, kana taajir ah, kana faqiir ah, kana maaragtay xanuunsan, kana maaragtay cudurro qabo, kana waayeel ah, kana qofkana dhalinyaro ah aanan kala garanaynin. musiibadaas ilaahay waxaan ka baryaynaa caradiisii nagu dhacday darteed adduunkii waa fasahaaday, adduunkii waa takabureen, waa kibreen. ilaahay marka wuxuu awoodiisii oo in yar ah aana la tusay. ilaahay waxaan ka baryaynaa adoomadiisii haddaan nahay bisha barakeysan darteed ilaahay fadligiisa. intaas kadib waxaan rabaa inaan maaragtay idiin mahad celiyo. waxaan rabaa inaan idinla wadaago farxadda bisha barakeysan ee ramadaan. waxaa lagu jiraa 10kii dambe. waxaan rabaa inaan maaragtay iswacyi gelino, dembi dhaaf fara badan, astakfaarta, tasbiixda, magacyada ilaahay, xuska ilaahay inaad badisid, tasbiixda aad badisid, astakfaarta badisid, maaragtay qawida laa xawla walaa quwata ilaa billaah inaan badsano aaday muhiim u tahay. especially inaa astaqfirullah wa atuubu ilayk, salliga nabiga allahuma salli wasallim wabaarik calaa sayidina maxamed inaan badsano aaday muhiim noogu tahay. waa waqti yar bisha barakeysan ee ramadaan. waa bishii naxariista, waa bishii raxmadda, waa bishii dembi dhaafka, waa bishii cadaabka la iska xoreynayay, waa bishii sadaqada maaragtay la isu naxariisanayay. aaday muhiim u tahay. sidaas darteed ayaana baryahan Facebook aanan usoo gelin. waxaa batay cabsidii, waxaa batay qoofkii, waxaa batay cuduradii. so marka haddaa adduunyo le maanta dhan adduunyo saaran tahay, sometimes waa in aad ictikaaf gashaa oo aad maaragtay aad waxyarna aaday muhiim u tahay inaad maaragtay wax yar isyara xakamayso oo xataa ictikaaf intaad gasho bal aad tiraahdo ilaahay dartiisaan bal intaan aan u sameynaya. marka aaday muhiim u tahay, especially gabdhahiga Soomaaliyeed. aada idin jecelahay, khayr badanaa dhamaanin allah idin siiyo. ramadaankiisa inta gaarayso ilaahay unbaa garanaya. ilaahay waxaan ka baryaynaa barwaaqo iyo bashbash iyo cibaado iyo cimrisan iyo qaatumada oo khayr ah ilaahay inuu noogu dhameeyo. waxaana idin sheegayaa waxaa batay mowtal fajrkii, macnaha qofka wax yar oo xanuunsaday waa dhintay, qofkii hadduu xanuunsaday hadduu dhintay.
waxaa batay virus xanuun aan la garanayno cid wax ka qaban karta lahayn oo adduunkii ilaahay oo dhan khalqal geliyey oo dadkii u kala aabayeelaynin ayadana waa masiibo kale oo ilaahay oo ma aragtay uu nagu imtixaanayo marka ilaahay waxaan ka baryeynaa wallaahi subxaan allah cabsidiyaa badatay khoofkiyaa batay gaajadiyaa badatay marka maaragtay ummadda la imtixaanayana khoofka iyo juuca maaragtay cabsida iyo gaajada aaday u dhibaato badan tahay gaajada xaggee ka imaaneysaa Yurub hadday noqoto gaajo dhibaato badan aa jira dadaa shaqo la-aan ku dhacday qof walba wuxuu ka cabanayaa waad adiga arkay supermarketyada dukaamada oo dhan in lagu cararayo raashinkii arma lagaa dhamaystaa ama gaajo kugu dhacdaa ama waxaa cunto aaweysaa waa juuc ma fahmaysaa خوفكنا وعذركي مركا kind of وحاواي وامتحان او ما عرفت انا قالوا امتحان ايو مركا الهي وحان كبرينا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك مركا الهي ان قلوب تادا ايو ما عرفتي ان دين تادا وكوغو ديلو انتاسا مهمة الهي سبحانه وتعالى انو دين تيسا ما عرفتي ايو ايمان اي الله كعبسي انو الهي كوغو ديلو waxaa kaloo muhiim ah in ilaahay dambigaaga dhaafo oo adoo saliim ah oo nadiif ah ina ilaahay subxaana wa tacaala hortagtid intaasaa muhiim ah waxyaabaha aniga hadda cudurada markay dhaceen viruskan especially covid-19 kan markuu dhacay waxyaabaha aniga aan aad u fiiriyo waxaa kamid ah marka qofka ay naqaska ku xirmo ama neefta ku xiranto ama uu neefta qaadan waayo oo isbitaalada la geeyo oxygentii lagu xiro oo uu qaadan waayo waa la gidiyaa qofka hal la gidiyo ama hal la gembiyo ay dhahaan si uu qofka naqaska u qaato macnaha qofkii sidii inuu sujuudsan yahay oo kale aa loo daba gedinayaa madaxiya dhulka loo dhigayaa saana loo foorarinayaa qofkii marka jilbaha dhulka loo dhigayaa madaxiya dhulka loo dhigayaa waa la foorarinayaa sidii qof sujuudsan oo kale markii la baaray markaan baaray hadda ogaaday waxaa la ogaaday qofka bini aadamka ah jirkiisa oo dhan maskaxda organada jirka dhan oxygena dhex wareegato meelaha qaar oxygenta sometimes markaad dhinac u jiiftid markaad si proper ah ama 100% jirkaaga oxygenta hal mar si fiican ma u wada gaarayso waxaa la ogaaday marka uu qofka sujuudsan yahay oo jilbaha dhulka u yaalaan oo wajigiisa ay dhulka yaalo uu ilaahay u sujuudsan yahay inay tahay waqtiga saxda ah oo oxygenta from madaxaaga ilaa lugtaada ay si fiican waqti sidii la rabay ay tahay sidii la rabay oxygentaada jirkaaga in uu markaas inuu xilligaas uu sujuudsan yahay qofka ayaa waxaa la ogaaday inuu yahay xilliga ugu fiican ee jirkiisa oxygenta ay si fiican uu ma aragtay waqtigiis limitki loogu talagalay inay tahay waxaa kaloo yaab leh in la yiri ma aragtay gacmaha hala dhaqdo si proper ah 24/7 gacmaha hala dhaqdo waxaa kaloo iyadana yaab leh in la dhahay hala luqluqdo sanka iyo ma aragtay bakteeriyada iyo waxa dhan halaga luqluqdo markasta hala luqluqdo sanka xitaa biyaha lagu shubo halaga soo maaragtay halaga soo daadiyo subxaanallah ma garanayo awood ilaahay aa socoto marka ku ilaahay imtixaanka ku dhaca ilaahay nagama dhigo dad badan ayaa nooga maaragtay baxay xanuunkan ilaahay waxaan ka baryeynaa intii maaragtay intii ku shahiiday xanuunkaas dhibka badan ilaahay inuu jannada geeyo inta hadda la xanuunsan allaha noo caafiyo allaha caafiyo ilaahay waxaan ka baryeynaa inta caafimaadka qabtana ilaahay ma soo gaarsiiyo kolba aniga tallaalkii weli ma qaadanin maybe wadankan ingiriiska waxaa lagu socdaa age iyo da' lagu socdaa da-daasaa sida ma aragtay loo kala wen yahay unbaa qofkii intuu meel iska taga layskama soo tallaali kara laakiin aniga ahaan waxaan aaminsanahay weli aniga la iima soo dirin marka waxaa is leeyahay waa u istikhaareysanaya calaa kulli xaal naftaan awalaanba la helayninba soo ma ogin lama helaayo ama celceli ama mara ku duuduub ama intaas yaal laakiin
just naftan waa karaameynayna iyadoo ma aragtay ammaan inagu tahay ayadoo nadiif ah oo karaamaysan oo carfayso ilaahay ayadoo carfayso oo ilaahay subxaana watacaala uu raali ka yahay oo nadiif ah oo udgoon aan rabnaa in ilaahay maalinteena inuu ilaahay ka dhigo marka ilaahay waxaa idinkaga baryaaya farxad ilaahay waxaa idinkaga baryaaya qof walba muraadkiisa iyo ma aragtay danta uu leeyahay ilaahay ha siiyo intaasa usoo galay maadaama bisha barakeysan ee ramadaan maalintii ee kow dhalanaysay ayaa iigu dambeysay inaan social media aan soo galo marka waxaan rabaa saasaan rabay inaan idinkula qeybsado marka laga baxo oo ciida la gaaro kadib waxaa noo bilaabanaysa farxadeeni programyadeeni inaan maaragtay wacyigelinteeni qof walba ilaahay inta uu garansiiyo inaan isu sheegno aad iyo aaday muhiim u tahay waxaan kaloo rabaa in aan idinkula dardaarmo dhulkii hooyo waxaa ka socdo abaaro dhinaca waxaa ka socdo xanuunkii oo maaragtay barbar socdo oo aanan facility badan iyo aan loo haynin oo dadkii aysan wacyigelin badan aysan iska qabin oo maaragtay dadkii uu si u baabi'iyey waxaa daba socdo roobab dadkii barakiciyey dadkii dhibaateeyey dadkii maaragtay duunye iyo dadba isku darsaday marka iyadana in la isu gurmado aaday muhiim u tahay ilaahay wuxuu yiri adduunka isugu naxariista samada idinkaga naxariisanayaa marka ilaahay naxariistiisa jannadiisa nagu geeyo aadaa idin salaamayaa farxad iyo cimri dheer oo cibaado leh aan ilaahay idinkaga baryayaa markay ciida soo dhowdahayna ta isu soo galna isu hambalyeynayna insha allah waxaan rabaa inaan idinkaga tago nabadgeliyo naxariistii rabbi dembi dhaaf cadaabkoona laga xoreeyey dembi dhaaf fara badan ilaahay waxaan ka baryanaa inuu jannada nagu kulmiyo wax ka sareeyo oo lagu duceysta ma jiraan ilaahay shaqo aan shaqaysanay iyo camal aan shaqaysanay kuma tegayna jannada ilaahay waxaan ka baryanaa inuu jannadiisa uu nagu geeyo naxariistiisa qabrigeena allaha nagu maaragtay qabriga allaha noo waasiciyo ilaahay naguma mugdiyeeyo ilaahay waxaan ka baryanaa in wadada toosan ee xaqa ah uu ilaahay nagu dilo inagoo inuu ilaahay hanuun nagu dilo oo aan hortiisa istaagno anagoo hanuunsan oo nadiif ah oo dembi lahayn caafimaad iyo khayr idinkaga tagayaa anigoo idin jecel idinkoo jecel waxaan idinkaga tagayaa wallahu macnaa wa macakum wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu